بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin taabatay dad badan oo community-geena ah una badan hooyooyinka ama haweenka u badan oo ah arrimaha caafimaadka. Horta dhulkan qurbaha aan ku noolnahay dad badan ayaa jirada awal waxaa la dhihi jiray qofka markuu 40 iyo meelahaas gaaraa Yurubariga imid waxaa la dhihi jiray qofka markuu 40 iyo gaaro markaas problemska ay bilaabmaan iyo jirooyinka oo dhan markaas ay albaabka soo garaacaan. Laakiin hadda sheekada 40kiiba way soo dhaaftayba. Dad badan oo yar oo dhalinyaro ah ayaa xanuuno ku dhaceen hooyooyin baha u badnaadaane kulli waa la wada jiran yahay. marka kulligeen maxaa na wada jirisiiyay waayo marka su'aasha kulli waa aan wada jiranahay maxaa sababay in gurigaaga adiga fiir hadda for example adiga i daawanaya adiga isfiir marka videoga daawatid gurigaagana fiiri meeqa qof jiran maxaa xanuunada idan hay maxay yihiin xanuunadaas ka fakar marka dadka aad taqaanid walaalaha ilmahay daleen saaxiibada dariskaaga magaalada dhan way jiran tahay taas waa isku wada afgaran doonaa u maleena magaalada dhan jiran jirada marka awal waxa loo haystay dadka qurbaha joogo kaliya inay jiran yihiin hadda dadkii wadankeena joogana waa jiran yihiin annaga waxaan kaga fiicanahay xoogaha daawo iyo wax isku maaweeliyaan haysanaa laakiin dadkaas daawona ma haystaan marka jirooyinkii waa bateen jirada marka maxay tahay waxa dadkoo dhan wada saameeyay ee jirada ka wada simay waa su'aasha in la isweydiiyo mudan dadka oo dhan waxa wada saameeyay ee jirada ka wada simay aniga marka waxay ila tahay arrintaas markaan ka fakiray waa cuntada kulli waxaan comment ka nahay kulligeen cuntaan cunaa problemka oo dhan na cuntadu ka yimaadaa jiroo dhan cuntada aan cunaa keentay maxaa yeelay cuntada aan cunno waa cunto sumaysan every corner meel kastay ka sumaysan tahay sun yar xitaa ma aha sun aan xad lahayn ayaa ku jirta cuntada aan cunno suntaas markaan cunno oo ay jidhkii gasho jidhkii markaa ma afgaranayo wax loogu talagalay jidhka inay galaan ma aha marka jidhkii ay wax aan loogu talagalin ay galaan marka waxay keenayaan problems jahawareer ayaa dhacaya jahawareerkaas markuu dhaco oo jidhkiisi khalad u shaqeeyo dan waa markay cudurrada yimaadaan waa like baabuurkaaga maanta haddaad baasiin khalad ku shubtid miyuu shaqaynayaa waa may uu fadhiisanayaa soo maha marka maxay ahayto waa sidaas jidhka bini'aadankana waa sidaas baabuur ba saliid khalada lagu shubay un ka soo qaad marka dadkeena because of sunta jidhkeena ku jirta awgeed ayaa marka dadka caqligoodiiba waa dhamaadayba waa sumaysanahay sunta jidhkeena ku jirta marka dadki waxay ka dhigtay waxba caqligi inaanu maskaxdii aanay fakaraynin shaqaynaynin ma garanaysaa waxaan la yiraahdo brain fog maskaxda dhanba ceeryaama ku dadan waa ceeryaansan tahay maskaxda dhanba maskax ceeryaansan marka oo ceeryaama saaran tahay oo fog waa ceeryaama saaran tahay si fiican uma shaqaynayso maskaxdaada haddaanay si fiican u shaqaynayn marka maxaa natiijada maxay tahay aad sugaysid marka natiijada aad sugaysid waa tan haysato waa problemka haysta waa because maskaxdeeni ma shaqaynayso maskaxdii hadii lagu sumeeyo oo suntii maskaxdii gaadhay that means wax shaqaynaya ma jiraan gurigii si fiican uma function garaynayo hooyadii si fiican uma function garaynayso caruurtii si fiican uma korayaan uma shaqaynayaan wax walba waxa waaye chaos waxa waaye waa isdhexyaac wixii waa isdhexyaacayaan wax shaqaynaya iyo wax kala soconaya ma jiraan waa baabuur jam galay oo meel u aada aan jirin waayo jam ku jiro oo afarta koonana hoonka la iskaga yeerinayo oo la isku wareeray marka hadalkan aan idin leeyahay maanta videogan si fiican u dhuux si fiican u faham waa isku dayayaa inaan idin jilciyo oo aan idin fahansiiyo waa ogahay maskaxdiina
ceeryaama ku jirta waa ogahay maskaxdiina si fiican uma shaqaynayso si fiican uma fakarayso ay ha u arkina laakiin waa reality waa run waay maskaxdiina si fiican uma shaqaynayso maskaxdiina ceeryaama saaran si fiican uma fakaraysid si fiican waxba uma qorsheyn kartid si fiican uma talin kartid si fiican focus malid focus macnaheedu wax ma focus gareyn kartid videogan hadda aan kuu sheegay hadalkan aan hadda kugula hadlaayo 1 minute of my video hadda dhageysatid oo aantan ku soo hor fadhiisto ku iraado maxaa ka faa'iiday ama maxaan ku iri kuma soo celin kartid kaligay ma aha videogay kaliya ma aha anything oo leedin sheego 1 minute hadda wax kuu sheego ma xasuusanaysid ma ku soo celin kartid shan sawir hadda ku tuso oo saas aan shan sawir aan hortaada soo marsiyo ku dhaw shantan sawir soo xasuuso ma xasuusan kartid maxaa yeelay maskaxdaadii ayaa ceeryoonsan maskaxda hadday ceeryoonsan tahayna waad garan kartaan maskaxda hadday ceeryoonsan tahay problemska ay keeni karto waa garan kartaan focus la'aan fakar la'aan qorshe xumo nervousness hurdo xumo dhibaato oo dhan halkaasay ka timiday dhibaatadana haysato oo dhan buuqa guriga ka taagan caruuraha wareeray hooyada iyo aabaha isku taagan mashaakil oo dhan aniga fikrad ahaan mashaakil oo dhan halkaas uu ka yimid marka diinteena waxaa loogu sheegay ilaahay wuxuu yiri cudur aanan dawadiisa adduunka keenin adduunka ma keenin bal hadalkaas fahma cudur aanan dawadiisa adduunka keenin ilaahay ma keeninba cudurkaas maba jiraba cudur kasta oo adduunka yimid daawadiisa way taalaa laakiin dadku waxay leeyihiin daawadii way taalaaye weli baan la helin kasoo qaad hadda xanuunadan dadka ku dhacay dhakhaatiirtan ay leeyihiin waa daaweynaynaa xanuun daawadiisa la hayo ma jirto ilaa hadda asmada daawadeeda lama hayo kasoo qaad diabetiska daawadeeda lama hayo dhiigkarka daawadiisa lama hayo kansarka daawadiisa lama hayo alzheimerska daawadiisa cudurrada waaweyn ee adduunka jiro dhan cudur daawadiisa la hayo ma jirto waxa ay hayaan waxa weeyaan wax macnihii controlaya cudurkaas inaanu out of control noqon daawooyinka la hayo waa cudurka waxa waa daawooyin loogu talagalay inay cudurka controlaan una out of control noqono meeshiisa ay ku hayaan laakiin waxa waa symptomkii ayay treat garaynayaan symptomkii laakiin cudurkii treatment looma hayo marka daawooyinkan marka naftirkooda dhibaatadooda leeyihiin waad ogtiin kulligiinba qofkii daawo qaata wuu garan karaa daawada naftirkeeda xal ma aha adiga oo muslim ah marka waxaa lagu sheegay cudur aan dawadiisa la keenin inaanu adduunka iman hadalkaas marka maskax ilaahay ku siiyay inkastoo maskaxdii waxoogaha leedinka qasay maskaxda bal inta kaaga hadhay la kaasho oo hadalkaas kelmadaas ka fakar oo faham aniga kelmadaas markaan ka fakaray oo aan isku dayay inaan fahmo fahamkii iiga soo baxay marka muxuu yahay daawada ilaahay noo soo dejiyay aniga sida ila tahay ma aha inaan like 2 kiimiko inta isku darno ama 3 kiimiko aan isku walaaqno oo aan daawo ama kiniin ama sharoobo ka soo dhex saarno aniga saas uma fahmin aniga waxaan u fahmay because qof walba aqoonna uma leh accessna uma laha inuu kiimikooyin intuu isku qasqasto daawo ka samaysto aniga waxaan u fahmay in ilaahay macni si fudud wax fudud ilaahay uu noogu talagalay wax easy noo ah oo aan access u leenahay oo aan heli karno oo aan isku daaweyn karno inuu ilaahay adduunka keenay waxaasna waxaan u fahmay aniga inay tahay cuntada waa wax aan heli karno oo aan access u leenahay oo aan isku qasan karno oo aan samaysan karno kiimika iyo daawo ma samaysan kartid laakiin cunto waa samaysan kartaa marka aniga waxaan u fahmay daawadana loo sheegay la leeyahay cudur kasta daawadiisa adduunka waa la keenay inay meel fog ba aanay kaa jirin ay cuntada tahay daawada lagu leeyahay ilaahay adduunka wuu noo keeno waa available waa cuntada aniga saan u fahmay waa qaldanaan karaa ma aha waa fikrad waa fikirkayga ila tahay aniga maxaa yeelay waxaan arkay inaanan daawooyinkan la sheegayo ee la warshadeeyay ee chemicalska ka samaysan
inaanay hadda la isticmaalo adduunka lagu isticmaalo waxaan arkay inaanay xal keenin oo cudurradan hadda aan idin sheego kala diabetiska iyo dhiigkarka iyo ma garanaysaa kansarka iyo already daawooyinka jira ee kiimikada ah aanay daweynin cudurradaas oo dawo aanay u noqonin marka ma idinla tahay inaan ka fakarno inaan cuntada isku daweyno maadaama daawooyinkii jiray ee cudurrada loo magacaabay inay dawo u yihiin aanay daweynayn cudurradii oo cudurradaas oo dhan aan dawo loo haynin maalinkaas maanta ah ma idinla tahay inaan ka fakarno inaan dawada u raadsano cuntada inaan u raadsano inaan ka fakarno ma idinla tahay cuntadii marka su-aal baa ka taagan ani saasay ila tahay inaan dawada cuntada u raadsano ila tahay cuntadii marka problema ka taagan cuntadii waa cuntooyinka lasoo buufiyey oo nalagu sumeeyey oo na khalkhaliyey khalkhalkaas ay cuntada iyo sunta ku jirta abuurtayna noloshaada oo dhan ayuu saameeyey ilaa qoyskaagii caruurtaadii walaalaha meel kasta dariskaaga iyo meel kastuu kaa saameeyey marka aniga waxay ila tahay haddaba cuntadiina waa sumaysan tahay suntii kiimikada ahaydna cudurradii ma daaweynayso waana jiranahay kulligeen waa jiranahay kulli xanuun ilmaha yaryar oo dhashaa wuxuu ku dhalanayaa dry skin iyo wejigiisoo axima leh iyo sanad jiro waxaa arkaysaa camankii ay qarqarxeen oo nabra miiran noqdeen waxaad arkaysaa ilmo yaroo dhashay lagu leeyahay neefuu qabaa waxaad arkaysaa ilmo yaroo dhashay oo xanuuno waaweyn oo khatara lagu sheegayo waxaas oo dhan waxaad arkaysaa ilmo yaroo dhashay lagu leeyahay maskaxdiisa dhiman oo ma garanaysaa autism iyo waxaasuu qabaa waxaasoo dhan cuntaday kasoo jeedaan waxaasoo dhan sunta cuntada lagu daray kasoo jeedaan sheekadan waa sheeko dheer videogana maxay ugu dheeraanaya haddaan ka hadlo idinkana waa kala dhuumanaysiin markaa video dheer aragtaan laakiin wax yar ii samra videogan faa'iido badan uu leeyahay cuntada marka marka maxaa cunaa su-aasha aad iweydiinaysiin marka waxay tahay haddaad leedahay cuntadiina waa sun oo iyadaaba problemkan oo dhanba uu kasoo jeedaa marka maxaan cunaa marka waxaa cunaysiin still waa yar yihiin choiceku waa yar yahay laakiin xasuuso Soomaaliya markii la joogay awowayaasheen iyo ayeeyooyinkeen choicekan aan hadda haysanay iyo waalidan maanay haysanin cuntadan tirada badan oo bacaysan oo baakaysan maysan haysanin choicekooda wuu yaraa cunto kooban ay cuni jireen caafimaad ayayna ku noolaayeen aniga awowayaasha iyo ayeeyooyinkay boqol qaara boqolka dhaafay qaarna waa ku dhawaadeen boqolka intaas ay boqolka kusoo dhawaadeen ama dhaafayeenna cudur ay qabeen ma jirto wadna xanuun iyo dhiikar iyo sonkor iyo wax ay qabeen ma jirto caafimaad ay ku joogeen da-un baa haysay marka of course qof walbaba adduunkan maalin uu leeyahay maalin uu ka tagaya qofna maalintiisa lama baajin karo waxa aan ka hadlayno waxa ay tahay sidii aad micnihii nolosha adduunka inta ilaahay kuugu talagalay sida aad nolol caafimaad la ugu noolaan lahayd oo caruurtaadana aad u korsan lahayd ugana nabadgeli lahayd wax dhibaatooyinkan adduunka yala aad uga nabadgelayd waxa aan ka hadlayna waa taas naf isku celis kama hadlayno qofna nafta laguma celin karo waxaan ka hadlayna waxay tahay waa sidii aad nolol caafimaad la ugu noolaan lahaydeen marka ku noqda ayeeyi iyo awoowe ku noqda siday u noolaayeen ani saas ila tahay ayeeyi awoowe say u noolaayeen ku noqda ayeeyi awoowe maxay cuni jireen ayeeyi awoogay aniga wuxuu cuni jiray wuxuu cuni jiray cad iyo caano waa hilib iyo caano bariis iyo baasta muusan aqoonin sonkortana waa maqasheen dadkii barigii hore sonkorta waa ku yarayd oo sonkorta 1 kiilo sonkor guriga markay soo gasho 1 sana la haynay oo waa la yaryaraysan jiray marka sidii barigaas loo noolaan jiray si ku dhow bal ka fakara cuntooyinka organiga ku dadaala waxyaabahan dhalooyinka iyo bacaha ku jira processorka ana ka fogaada wax kasta waa bacaysan yihiin waa ogahay laakiin intaad bacda ka carari kartaan ka carara baastada iyo bariiska yaraysta iyo sonkorta iyo burka waa cadowga ugu horeeyo waayo koobaad waa inaad waxa aad cunaysid
كفكرتا قرشيسا اخرسا aadan inta supermarketka iska tagtay adoo indhaha isku haya aadan ku soo guranin meesha supermarketka hadda aniga inaan dadka dambiilahooda faraha la galaaba iga soo dhaw waxa ay dadkeena aruursanayaan marka aragtid marka supermarketka marka aad tagaysaan waa inaad la tagtaan timetable waa inaad la tagtaan wax qoran oo waxaas qoran aad soo gadataan horta cabitaanadan sonkorta ka buuxda iyo yogodkan fayga ah iyo waxaan ciyaalada ah ku lugoyseen please kada gabadha waxay ii soo weydiisay cunugayga cuntada cuni waaye cunuga cuntada cuni waaye maxaan siiyaa cunuga muxuu cuntada cuni waaye waay cunugaaga cuntada cuni waaye ma is weydiisay qofka waa bini aadan ama baby ha ahaado ama qof dhalinyaro ha ahaado ama qof weyn ha ahaado qof cunto la-aan noolaan kara ma jiro qof cunto ka maarma ma jiro qof aanay gaajo qabanayna ma jiro waa idinku celina hooyooyinka aaminsan ilmahena wax ma cunaan ilmaha gaajo way qabanaysaa ilaaha u abuuray marka su-aasha waxay tahay cunugaaga markay gaajo qabato muxuu cunayaa waa the question cunugaaga haddaad chocolate maxaa la dhahay nutelladan dhalooda ku jirto oo sonkorta baxashaas by the way iska daaya palm oil wax la yirahdaa ku jiro very seriously dangerous ah khatar waaye palm oil meeshay ku jirto ka fogaada nutella palm oil iyo sugar ka buuxdo marka cunuga armaajada u galisid uu maanta oo dhan toast and nutella uu ismarinayo of course hadhow marka cunto miiska usoo saartid may toast and nutella hadda cunay maba ogidba wuxuu cunay iyo wax kalena warba kamaba haysidba marka hadhowna waxaa leedahay cunuga cuntadii uu diiday cunuga cuntada ma diidin gaajana ma hayso laakiin bedel uu haystaa bedelka uu haysta marka waa inaad la dhiil karaysaa cuntada bedelka cunugan uu isku maxay uu gaajada iskaga bi'iyo maxay tahay waay haddaadan raalli ka ahayn ilmahaaga cuntada uu gaajada iskaga bi'iyo armaajada aa usoo gelisay iyo buskudka iyo crispiga iyo yogodka iyo nutellada aadan raalli ka ahayn gurigaaga ha keenin very simple gurigaaga marka aadan keenin cunugaaga gaaja qabanaysa waa very natural qofka waa bini aadan gaaja qabanaysa markay gaajada qabatana wixii aa u kariso miiska soo saartay uu cunayaa marka qof aan gaajo qabanayn adduunka ma jiro marka hooyooyinka isku maaweela alla cunuga cunto ma cuno alla cunugayga cunto ma cuno cunugaaga cunto wuu cunaa gaajana way qabataa laakiin qashin wuu cunaa qashinka guriga ka daa adaa soo gaday cunuga ha baleym garaynin qashinka armaajada soo gelisay uun ka saar cunuga cuntadiisa wuu cunaa I guarantee you inuu cunugaaga cuntadiisa cuno si fiicanna weliba u cuno marka taas naftirkeeda hooyooyinka saas aaminsan maybe brainkooda fog yeeshay ma fahmi karto in ilmahan uu qashinkan iyo snaagan iyo nutelladan iyo waxaan uu isku dharjinayo marka waxay isleedahay cunuga bariiskii aan miiska soo saaray maanta muusan cunin waa inaad fahantaa cunugaaga maanta bariiskii aan miiska soo saartay ama baastada miiska soo saartay haddaanu cunin muxuu kalu cunay waa inay very easy ku ahaataa inaad fahantid not inaad tirahdid ilmahayga cuntada ma cunaan why uu cunugayga cuntada u cunin ma aha cunugaaga cuntada waxaan u cunin waa taqaanaa qofnaha weydiintaas taas intaasaan kaga baxayaa cuntada marka waa inaad kuma celcelin karo dee arrintan maanta oo dhan kuma celcelin karo subax dhaweyto videogan waa dheeraana subax dhaweyto waxaan tagnay quraac gabdha aan isu nimidnay quraac isugu imaanay quraacda marka isugu imaanay marka waa la sheekeynayay xoogaa marka fikradahaygan gabdhaha rabay inaan u sheego markaan arkay the way loo sheekaysanayo oo loo buuqaya waxaan iri gabdho waxaan idinka codsanaya 5 daqiiqo inaa isiisaan 5 daqiiqo bas inaa isiisaan 5 daqiiqo waa ku siinaynaa yaa la yiri laakiin waa ligama ceshan laakiin maskaxdii focus ma leh 5 daqiiqo they cannot even focus 5 minutes inay dhageystaan waa focus garin waa xumaanka ma aha laakiin jirkooda iyo waxa ku jira iyo habka uu u shaqeynaayo ayaa waxaas keenay iyaga ceeb ma leh mana ka aha maxay to ixtiraam darro iyo dib iyo edab darro kama ah laakiin maskaxdiyaanba waxbaba qaadi karinba maskaxdiyaanba focus lahaynba maskaxdiyaa sidii loogu talagalay inay u shaqeyso si aan ahayn u shaqeynayso marka
haddaan rabno mashaakilaadkana haysta inaan fix garayno caafimaad darrada hooyooyinkeena haysata caafimaad darrada caruuraheena yaryaraa haysata saqiirkii yaraayee dhashay caafimaad darradana haysata haddaan rabno inaan wax ka qabano waa inaan hoos u fiirina cuntada aan cunayno wax weyn ma aha shaqo culus ma aha wax aadan samayn karin ma aha waliba hooyooyinka Soomaalida waxay caan ku yihiin cuntadooda way karsadaan sida badan cuntada aad caruurtaada u karinaysid sax waa ogahay caruurta waxay barteen ay ku koreen rabayaan waa lagula dagaalamayaa waa la gunuuci doonaa laakiin waa dantooda kuwad waa la qabsanayaan anaa saas sameeyay anaa saas soo maray dagaal badan soo maray cuntadii aan ciyaalkayga baray ma u malaynaysaa hadda markaan meel aadeyno awal markaan meel aadeyno maalintaan outing sameeyno kale iyo restaurantada soo fadhiisan jirnay suuqa wax ka soo cuni jirnay ma u malaynaysaa hadda markaan outing diyaarnay in ciyaalkayga dhahan hooyo back lunch noo sii diyaari bari markaan meeshaas aadeyno cuntadii aan cuni lahayn ma rabo inaan suuqa wax ka soo cuno back lunch noo sii diyaari si aan suuqa uga soo cuno si aan suuqa ugu cuno restaurantada cuntadooda ma rabo ma u malaynaysaa ciyaalkayga inay heerkaas gaareen alxamdulillah marka idinkana heerkaas waa gaari doontaan waxaan waa barasho carabka bini'aadanka waa very easy in la train gareeyo carabka waa dhadhanka meesha uu ka yimaado marka carabkaaga muddo gaaban aad ku train gareyn kartaa muddo gaaban qorshaha la imaada niyadda la imaada maskaxda la imaada daawo kale ma jirto daawo kale yaa la raadinin daawada cuntada ku jirtaa daawada naloo sheegay aniga I believe inay cuntada ku jirto daawada cuntada u raadsadaa qofkii su'aal qaba hoos igu soo weydiiyo videogaana waxaan u malaynayaa oo aaminsanahay inuu yahay video qiimo leh please la share garay inta aad jeceshihiin wixii comment ahna waad soo weydiin kartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaah